magaalada Hargeysa waxa uu dab ka kacay hoyga uu degan yahay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi. goobtaasi waxa soo gaadhay ciidamada ka hortaga dabka kuwaasi oo deminayay dabkaasi ka kacay guriga, waxaana intii ku sugnaa agagaarka gurigaasi dabku ka kacayay ay indhahaygu qabanayeen baabuurta dabdamiska ee uu iska leeyahay madaarka Cigaal, kuwaasi oo markii ugu horeysay lagu arkay goob ka baxsan madaarka Cigaal oo ay ka fulinayaan hawlahooga shaqo. gurigani wasiirka ee dabku qabsaday looma ogolaan warbaahintu inay wax muuqaala ka qaadato, waxaana goobtaasi aad u adkeeyay ciidamo militariya oo aad u ilaalinayay gurigaasi iyo waliba agagaarkiisa. intaa kadib si guriga iyo waliba khasaaraha ka dhashay wax uga ogaado telefishinka Ariel waxaan waraystay taliyaha guud ee ciidamada damdamiska ee Somaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili. marka hore waxaan weydiiyay bal inuu ka waramo dabkaasi iyo waxa uu khasaare keenay. saacad ka hor guri 12 maqsina ayuu dab qabsaday, wuxuu ka bilaabmay qolka fadhiga waxaanu ugu siifiday qolka hurdada. qolkii kale alxamdulillah ciidanka damdamiska qaranku waxay ku guuleysteen in dabkii xakameeyaan baqtiyaan. guriguna laba guri isku jiray, guriga ka kacay maaha, guriga kalena si fiican ayay uga difaaceen. waxaan dadweynahana u sheegay haddii alla ka dhigo haddii dab arkaan si degdega inay nagu soo yeedhaan nambarka la yidhaahdo 99 eber si degdeg marka ay dabka arkaan intuu yar yahay yaana isku dayn inay la dagaalamaan. markuu faraha ka baxo inay dabdamiska u yeedhaan, marka waxba lagama qaban karo. marka dadweynaha aad iyo aad baa waxaan ugu waaninaya had iyo jeer waan ka sheegaa in dabku intuu yar yahay wax laga qaban karo, haddiise uu dabkaasi weynaado khasaarihiisi buu la imanaya. marka hadduu dabkaasi weynaado khasaarihiisi markuu la imaado biyo badan baa lagu isticmaalaya, gurigii wuxuu noqonaya markaa wada qoyaan buu noqonaya. marka aad iyo aad waxaan dadweynaha ugu mahadinaya had iyo jeer waxay isku dayeen in dabka ay la dagaalamaan baqtiinayaan, laakiin daahayska dabdamiska daahinayaanna mushkilad baa ka imanaysa. had iyo jeerna daaqadaha ayay furaan, albaabadana way furaan, jiingadana way furaan, halkaasoo dab fiditaanku uu dhaqsoo fidayo. marka dabkii maanta alxamdulillah 12 maqsin guriga fadhiga ka kacay maahe intii kale waa nabadgelinay iyo hantidiisiba. wixii sababay iyo wixii dabka keenana baadhistii booliiska ku maqan, baarayaashii ku maqan. marka insha Allah dib baan ka soo sheegi doonaa wixii dhaliya dabkaas. waa gurigii wasiirka madaxtooyada weyn tagnay taliye waxa arkaynay baabuur aan ahayn kuwiini oo la yiri madaarka kuwii ilaalinayay ee dhinaca dabka hadduu qabsado ayaa jiray. marka ma wax biyalaan dabdamiska haysta ayaa jira? maya hadii jeer dabdamisku way soo yeedhaan, way soo qaala dirtaan. anagu maana yeeran, laakiin shicibkii baa u yeedhay. waxaanu noo yimid goor aanu baqtiinay oon biyo iyo waxba looga baahnayn. anagu biyahaygu ma kala go'an 1300 dab baanu ayaan la dagaalanay, weli maalin biyo naga go'an ma jiro. waxa jira dab aan 6 saacadood la dagaalanay baa jira. marka xoogeen baan ugu imaadeen biyo ma naga go'ay amba ciidan loo baahnaa kordhisima waxa ma jirin. markii imaadeenna anaba joojinay guriga oo waan baqtiinay, wax dhibaato ma leh, raal baa naga noqonaysan. Batri Koosar Maxamuud, telefishinka Ariel, Hargeysa.